السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان وتاريخ ميديا وصل هذا مقال عصب dalkayga iyo horumarkii dadkayga iyo hanashadii dambuud iyo haaminteed intaan dihan karo garaad intaan daxasho karo intaan dux abuuri karo kalsami iyo daacadnimo وأبوان عبد القادر عبد الشبه وكمدا رأس مال كفنك يا فنانين تصوماليات هذا النول أبوان شبه وحقول شيء باديها على البصير دقمدا كترسن قبل كنقال وكل حي تمن جرسدي ميغا مغالداس isagoo xilliga ahaa ari raac balse Abwaan Shube ayaa isaga soo tagay miigi uu muddo ku noolaa waxa uu yimid magaalada bishii Oktoobar sanadii 1972 isagoo 16 jir ah ayuu ku biiray ciidanka xoogga dalka waxa uuna door firfircoon ku dhexlahaa ciidamada xoogga marka dhan kasta laga eego xagga tababarada iyo sidoo kale howlgalladii ay ciidamada fulin jireen Abwaan Cabduqaadir Cabdi Shube ayaa sidoo kale kamid ahaa ciidankii galay degmada Goday xilligii uu socday dagaalkii 1977 ama 77kii ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya 3 Oktoobar sanadka markuu ahaa 1978kii ayuu Abwaan Cabduqaadir Shube si toos ah ugu soo wareegay dhanka fanka iyo wacyigelinta bulshada gaar ahaan kooxda horseed ee ka tirsan ciidamada xoogga dalka Abwaan Shube ayaa heestiisii ugu horeysay ee uu sameeyay waxay ahayd maqrib shaaci galay madoobaad ku dhow yahay cirkana may onkadiyo madow iyo daruuruhu madaxa isa saaray oo ay ku luuqeysay Xaliime Muuse Milano sidoo kale Abwaan Cabduqaadir Shube waxa uu sameeyay gabayo riwaayado iyo heese aad u tiro badan kuwaas oo isugu jira wacyigelin iyo jacayl Abwaan Shube ayaa fanka isaga tagay xilliyadii 80maadka waxa uuna noqday ganacsade inkastoo abwaanka lagu xasuustay kaalintii uu kaga jiray dhanka fanka Soomaaliyeed hase ahaatee waxa uu dib ugu soo laabtay fanka sanadka markuu ahaa 2010kii hadda waa maareeyaha tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed oo hadda dib u dayactir uu ku socdo guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa inta aan dib ugu kulmi doono muuqaalkan kan xiga fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka saar subscribe la wadaag asxaabtaada qaybta hoosana noogu reeb aragtidaada nabadgelyo